nin caraba oo gabya ah ayaa wuxuu yidhi, sharafta ma waxaad moodday miro yar oo aad si fudud u guranayso, sharafta gaari maysid ilaa aad dacarta leefto. waana sababta ay guulaystayaashu dunida ugu yar yihiin. marka aan dib u eegno taariikhda guulaystayaasha, waxaan arkaynaa in muddadii ay ku jireen halganka uu soo wajahay fashil fara badan. dacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iidaysta muuqaaladiisa. sabskrayb dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koowaad. mahadsanid walaal. assalaamu calaykum. guulaystuhu isma dhiibo. ma garanaysaa dhanka ay maanta dunidan u socoto? waxaan filayaa dadka qaarkii xitaa inaysan garanayn dhanka ay dabayshu u socoto. dunidan waxaa lagu jiraa tartan, gaal iyo muslimba. qof walbana wuxuu u hamuun u qabaa siduu nolosha uga guul gaari lahaa, si noloshiisa dambe iyo ayaa mustaqbalkiisa uu nolol raaxale ugu noolaado. maantay waxaan ka hadlaynaa guusha iyo arrimo la xidhiidha. guusha waxaa laga qoray kitaabo badan oo dunida daafaheeda yaal. qof walbana wuxuu raadiyaa guusha, laakiin dadkoo dhan ma helaan. waxaa helo dad yar oo gaara. haddaba ciwaanka mawduuceenna ayaa wuxuu yahay guulaystuhu isma dhiibo. aannu gudaha u galno waxa ay guushu tahay. marka laga hadlaayo guusha, maahan mid fudud oo cid walba si fudud ku gaari karto. haddii ay guushu ahaan lahayd mid fudud, guushu sharaf ma yeelateen. waxay sharaf ku yeelatay waxay ku kacaysaa qiimo aad u sarreeya, qiimahaas oo aysan cid walba goyn karin. guusha dariiqeedu waa mid ay qodxo badan yaallaan. waa dariiq aad kufayso oo aad kacayso. waa dariiq caqabado badan kaa hor imaanayaan. waxaa laga yaabaa inaan ku cabsi geliyey, laakiinse waxaan kuu sheegayaa oo xaqiiqo ah, haddii aad dariiqa adag mari weydo oo aad ka baqdo, waxaa ku sugaayo dhibaato ka badan tan guulaystuhu u bareero. dhibaatadaas uu guulaystuhu u bareeraayo waxaa ka dambeeya dheef iyo nolol karaamo leh oo nolosha intiisa dambe uu ku noolaanayo, halka uu guuldarraystuhu nolosha intiisa dambe uu rafaad iyo dhib ku qaadanayo. waxaa jirto halhays carabi ah oo dhahaysa sidaan: man lam takun bidaaya maxriqatu lam takun lahu nihaayatu mashriqa. ninka aan bilowgiisii hore gubanin, noloshiisa inta dambe ma noqoto mid qurux badan. sidaan ayay noqonaysaa marka. kollayba mar walba dhib way taallaa dunida, ee kala dooro dhib ay dheefi ka dambayso iyo hurdo iyo caajis uu dhibi ka dambeeyo ama rafaad badan. nin caraba oo gabya ah ayaa wuxuu yidhi, sharafta ma waxaad moodday miro yar oo aad si fudud u guranayso, sharafta gaari maysid ilaa aad dacarta leefto. waana sababta ay guulaystayaashu dunida ugu yar yihiin. marka aan dib u eegno taariikhda guulaystayaasha, waxaan arkaynaa in muddadii ay ku jireen halganka uu soo wajahay fashil fara badan. bal u fiirso, Thomas Edison markii uu soo saarayay laambadda, waxaa la sheegaa inuu fashilmay 9,999 jeer. tirada intaas la'eg ma jiro qof dunidan ku nool oo u dulqaadan kara inuu fashilmo. laakiinse Thomas ismuu dhiibin ee wuxuu ka baranayay cashar si uusan qaladkan mar kale ugu soo laaban. ninkan la yidhaahdo Honda ee leh shirkadda soo saarta baabuurta iyo mootooyinka, wuxuu soo maray taariikh murugo leh oo markuu mashruuc dhammeeyaba kolba dhibaato uusan filayn ayaa soo wajahdo. weligiisna lagama qorin hal kelmad oo uu dhahay oo ku saabsan waan isdhiibay anigu. bal u fiirso ninkan sheekadiisa. wuxuu ku fashilmay shaqadiisii sannadkii 1831. mar kale ayuu haddana shaqadiisii ku fashilmay sannadkii 1834. haddana waxaa ku dhacay murugo kadib markii ay dhimatay xaaskiisa 1835. murugadaas oo isku beddeshay xanuun aad u fara badan. wuxuu ku fashilmay doorashadii sannadkii 1838. haddana wuxuu ku fashilmay doorashadii sannadkii 1847. haddana wuxuu ku fashilmay doorashooyinkii baarlamaanka sannadkii 1855. mar kale ayuu haddana ku fashilmay tartankii uu u galay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeen sannadkii 1856. wuxuu haddana mar labaad ku fashilmay doorashadii baarlamaanka sannadkii 1858. iyadoo ay jirto waxaas oo fashil ah oo ku dhacay, haddana marna isma dhiibin, mana joojin hiigsigiisii ahaa in uu mar uun madaxweyne noqdo. ugu dambayntii waxaa Abraham Lincoln loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka Maraykanka markii ay da'diisu gaartay 60 jir. rafaadkii iyo halgankii dheeraa ee uu soo maray wuxuu ku soo koobay dhowr kelmadood oo xigmadi ka buuxdo. wuxuu yidhi sidaan: ma fashilmaysid ilaa inaad isdhiibto mooye. run ahaantii dariiqa guusha maahan mid fudud oo ubaxyo daadsan yihiin. dadka aad arkayso ee guulaha waaweyn ee taariikhdu xustay gaaray waxay markoodii hore soo dhedhamiyeen qaraarka fashilka. sidaa awgeed waa inaad ogaataa walaal, fashilku waa dariiqa guusha lagu gaaro. ee haddii aad bilowday mashruuc oo aad ku fashilmatay markaagii ugu horreeyey, bilow mar kale. ha isdhiibin ilaa aad guusha ka xaqiijinayso. ogowna culayska fudayd baa ka dambeeya, habeenkana maalin baa ka dambaysa, jiilaalkana gubaa ka dambeeya, xanuunkana caafimaad baa ka dambeeya.
culays kasta oo ay leedahay dhibta ku haysata ha isdhiibin hana rajo dhigin ilaahayna talada u dhiibo oo dheh kii noolaa ee waxa dunida jooga oo dhan amarkiisa ku socdeenow naxariistaada ayaan gargaar iyo kaalmo kugu weydiisanayaa ilaahayna u toobadkeen naftaadana dib ugu noqo markaad wanaajiso xidhiirka alle kaala dhexeeya dadaalna aad la timaaddo insha allah arrimuhu way hagaagayaan ugu dambayntii waxaan kugu soo afjarayaa guulaystuhu isma dhiibo waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.